taliyaha ilaalada kacaanka islaamiga ah ee jamhuuriyadda Iiraan Generaal Hussein Salami ayaa u magacaabay Brigadier General Mohammed Kasimi madaxa cusub ee ururka sirdoonka jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan si uu u bedelo Hussein Tayyib oo horay hoggaanka sirdoonka gacanta ugu hayay. afhayeenka ilaalada kacaanka islaamiga ah Sarreeye Guuto Ramazan Sharif ayaa ku dhawaaqay magacaabistan cusub maanta oo Khamiis ah gelinka dambe ee waqtiga Tehran. madaxii hore hay'adda sirdoonka ilaalada kacaanka islaamiga ah waxaa sidoo kale loo magacaabay la taliyaha ilaalada kacaanka kadib wareegto uu soo saaray Sarreeye Gaas Hussein Salami sida lagu yiri war ka soo baxay ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan. afhayeenka ayaa intaa ku sii daray hadalkiisa in madaxa cusub ee hay'adda sirdoonka ilaalada kacaanka uu muddo sanado ah madax ka ahaa hay'adda ilaalinta sirdoonka ilaalada kacaanka islaamiga ah isla markaana uu khibrad dheer u leeyahay arrimaha amniga iyo ilaalinta sirdoonka. Generaal Sharif ayaa sidoo kale ku ammaanay Tareeb waxqabadkii uu ka soo qabtay xilalkii hore isagoo sheegay in marka laga soo tago sanado badan oo wax ku ool ah oo qiimo badan uu ka soo qaatay door weyn hay'adda sirdoonka ilaalada kacaanka islaamiga ah iyo waaxda arrimaha bulshada iyo sidoo kale qaybta dhaqanka ilaalada kacaanka sida uu ka dhawaajiyay hoggaanka. ilaalada kacaanka islaamiga ayaa dib u habeyn ballaaran lagu wadaa sida ilo muhiim ah oo dhinaca amniga laga soo xigtay. Tehran ayaa in dhaweydba ku howlaneed dib u qaabayn ballaaran iyadoo Iiraan ay u muuqatay waayahan inay xoogga saartay tayada sirdoonka iyo kor u qaadista dhinaca xog helista iyo ugaarsiga cadowga shisheeye. saraakiil muhiim ah oo diiday in xogtooda la shaaciyo ayaa xaqiijiyay jiritaanka in jamhuuriyadda islaamiga Iiraan in ay go'aan ku qaadatay kol aan sii fogeyn sidii ay u qaabayn lahayd qorshayaasha waaxyaha amniga gaar ahaan sirdoonka iyo kor u qaadista tayadiisa gaarka ah. docda kale tani waxay ku soo beegmaysaa iyada oo uu socdo ugaarsi gaar ah oo sirdoonada Tel Aviv iyo Tehran ah. labada dhinac ayaa qaadaya tallaabooyin u muuqda in qoladeeda kale ee muhiimka ee xagga sahayda iyo saadka sirdoonka ay bartilmaameedyo gaar ah dabcan ku tahay. Tel Aviv ayaa aaminsan in dhawaanahan xog halis ah oo danaheeda amniga qaranka quseeya xoogag kale oo cadow ku ah danaha jiritaanka Iiraan danaha jiritaanka Israa'iil waa sida ay qabaan hoggaanka. marka loo fiiriyo Iiraan iyo Israa'iil mar kale ayay masraxyada caalamka ku soo kordhin doonaan dagaal daasoon oo dhinaca sirdoonka iyo ugaarsiga qarsoon ee xubnaha muhiimka ah sida laga soo xigtay khubaro dhinaca amniga ka faaloota. bariga dhexe waa rugta qura oo ay labada qole si gaar ah isugu bartilmaamaysanayaan. dagaalkoodu waxaa la oran karayaa waa biyaha hoostooda ilaa iyo hadda si toos ah uma soo shaac bixin. laakiin sirdoonada Yuhuudda oo taageero ka helaya kuwa reer galbeedka ayaa marar badan isku dayay in gudaha Iiraan gaar ahaan magaalada caasimadda ah lagu qaarajiyo xubno muhiim u ah jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan. intaa wixii ka dambeeyay Iiraan ayaa aad u dabagalaysay sirdoonka shisheeye ee la aaminsan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan weli qaybo ka mid ah dalkeeda. docda kale meelo ka mid ah Aasiya iyo Yurub ayaa waxaa ka socda ugaarsi. sidoo kale bariga dhexe waa xudunta khilaafka iyo isbeegsiga labada daraf sida khubaro qaabeeya arrimaha amniga ay qireen. lama oga dagaalka daasoon iyo ugaarsiga sirdoonada fariimaha handadaada iyo hadallada u muuqda in ay kicinayaan dareennada dalalkan iyo dadyowgooda halka ay ku dambayn doonaan. Iiraan mar walba cadowgeeda koobaad waa u Maraykan iyo sidoo kale garabka Maraykanka ee Israa'iil marka loo yimaado faalaynta qatarta danahooda amniga qaranka ee gudaha qarankooda iyo sidoo kale daafaha gobolka.